Somaliland waa qaran curdina oo koraya waa mid horumar ka sameynaya dhinac kasta yoolasha qaran ee qorshaysan waxa kow ka ah kobcinta dhaqaalaha si guul looga gaadho dhaqaalaha loona gaadho higsiga isku filnaansho xukuumadda Somaliland waxay qabanaysaa shirweynihii ugu horeeyay ee madasha dhaqaalaha qaranka ee sanadkan 2022 oo ay ujeedadiisu tahay in la ogaado fursadaha jira dhibaatooyinka dhaqaalaha haystana loo helo xal waara isla markaasna dib u eegis lagu sameeyo xaaladaha dhaqaale ee dalka Hargeysa waxa maanta ku kulmay gudida dhaqaalaha ee golaha wasiirada saraakiil ka tirsan hay'adaha dawladda iyo khubaro kale waxaana si rasmi ah loogu shaaciyay shirweynaha qaran ee madasha dhaqaalaha maanta oo khamiisa oo bisha September ay tahay waxa halkan isugu yimi kulan ay ka soo qayb galeen xubno ka tirsan gudida dhaqaalaha ee golaha wasiirada iyo saraakiil iyo khubaro kulankaas ujeedadiisu waxay ahayd ka tashiga qabanqaabada shirweyne madasha dhaqaalaha qaranka oo qorshaysan in la isugu yimaado bishan ku jiro 10keeda ilaa 12keeda ujeedada shirkaasi waxa weeye in xog la siiyo la iswaraysto la falanqeeyo la qiimeeyo xaaladda dhaqaale ee ka taagan waddanka iyo carqaladaha aynu hor taagan ee soo waajahay iyo sidii xal loogu heli lahaa ee looga bixi lahaa shirka waxa ka soo qayb galaya hay'adaha dawladda qaybta gaarka loo leeyahay private sector-ka dadweynaha iyo jaamacadaha ay ka soo qayb galaya waxa laga hadli doonaa shirka arrimo la xiriira iskaga filaanshaha cuntada maalgashiga tamarta ganacsiga kaabayaasha waxbarashada iyo deeqaha shirkaas wuxuu noqon doonaa insha Allah shir la joogteeyo oo sanadla ah ay noqon doonaa waana shir aad iyo aad u qiimo badan oo maadaama aynu doonayno inaynu kobcino dhaqaalaheena habkaynu mareynana uu noqdo wada tashi iyo iskaashi iyo gacan isqabsi